mid ka mid ah hoy ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Howlwadaag. Hoygani ayaa waxaa la igu soo sheegay arrin aad iyo aad u murugo leh, laygana codsaday inaan arrintaani u soo bandhigo ummadda Soomaaliyeed. Kadib waxaan bilaabay inaan hoygii booqdo. Waxa aan galay isla hoygii markii aan dhaxda marayo ee barxadda dhexe waxa iga hor yimid arrin aan aad uga naxay oo calooliyow iyo murugo igu reebatay. Waana tan hooyadaani oo ahayd hooyo aad ugu dhibaataysan gurigaani dhexdiisa oo uga kirisnay qol ka mid ah qolalka ku yaalo guriga dhexdiisa. Tani waa hooyo Qadro Cabdullaahi Dhaqane. Waa hooyo saboola, wax caruura maysan dhalin oo aan ka ahayn hal gabar, hooyadana iska duruufaysan. waxa kale oo hooyo Qadro la noolay famil dariskeeda ah oo guriga ku dhagan u kirisnay oo iyagan aan waxba haysan. waxaana kale oo la joogay hooyo Qadro hooyadeed oo ah waayeel, taasi oo inooga sheekaysay dhibaatadii hooyo Qadro haysato iyo wixii soo martay. waana tan aniga waxaa la yiraahdaa Cadar Maxamed Cumar Cadar Talaaga ku magac dheerahay. gabadhaana Qadro Cabdullaahi Dhaqane la yiraahdaa. gabadha ay dhashay hibo la yiraahdaa hibo oo ayada ay dhashay. dad waxaan nahay masaakiine, dad waxaan nahay iska degan magaalada, dad guri ijaara ku jirnaanahay. gabadhaas 8 bilood ay sakaraad tahay, halkaas ay saaran tahay. ummadda Ilaahay oo adduunyada ku nool inay gargaartaan rabaarad iyo meeshay joogaan dad iyo dad iga gargaaro ayaan u baahanahay. dad saboolahan nahay, waxaan haysanaa male guryaha waa ijaar. hadda lacagdaan ugu go'day waxaan ku bixinana ma hayno. dadka walaalkay waxaan ka jecelnaa rabnaa inay noo soo gargaaraan. dadka ummadda inay u gargaarto, ummadda islaamka isu gargaaraan ina gargaara. saasaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo walaalayaal. adinkana waa mahadsantihiin. hooyada 8 bilood sir saaran tahay, wax caawinaad ma helo, qoyskahay intiisa loo ayaan lahay. dadweynaha waxa ku codsanayna in guriga loo fidiyaan. Cabdullaahi Dhaqane lahaa way xanuunsan tahay 8 bilood kaamil xanuunsan tahay. qof u jooga magaaladana ma lahan, xoolana ma haysto iska bixiso. hal gabar ay qabtaa, gabadheena wax gacanteeda ku jirto mala garooba oo iyada bilix cunug haysto waay. intaas wax wal laga wareego mana isbitaal la geyn kara, ma lahan awoodna uma haysano, waxa haysanana ma lahan. waxaan u liidanaa aadan u dhibaato badanaa u liidanaa. waxaa u daran dhuunta oo daran habeenkii ma seexato, maalintii darbiyeeda qaraacsan markay hadlayso. caabiyo ma lahan, dariskeedaan nahay halkaan degan, waxna ma awoodi karno. qof daris oo waxba u awoodi kara lahayn waa in faleebada halka door faleebadana u keenno, maan wax kale aan siin karno ma lahan. dariska caawimaan qof kale caawiyo ma lahan. Qadar Cabdullaahi ninkii inuu soo caawiyo rabo dal iyo dibad inuu soo caawiyaan day rabaan. lambarkeeda waxaa waaye eber 6 hal 2 53 eber 3 23. gabadheedu way heli weysay murugo iyo dhibaato badan ay u heli weysay. gabadheeda aad u liidataa. haddaba walaal, caawi hooyadan oo ha ka baqaylin waxa yar ee jeebkaaga ku jira ee sariirta u saaran tahay, adigoo kala xiriirayo lambarka shaashadda ku qoran.